dhinaca kalena haweenayda ay maxkamaddu tuurtay xabsigii horey loogu xukumay ayaa waraysi ay siisay idaacadda VOA-da waxa ay ku adkaysatay in la kufsaday waxa ayna sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka doonayso in cadaalad loo sameeyo. Isla Haruun Macruuf ayaa iyana kula xiriiray khadka telefoonka haweenaydaasi oo aanan magaceeda sheegin wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u aragto go'aanka maxkamadda ee racfaankan. maxkamadda waxay dhacday dambiile ma ahan dembi looma haysto maxkamadda racfaanka ee fasaxday telefoonada la siiyey. marka sideed u aragtaa go'aanka maxkamadda? go'aanka maxkamadda walahi waxaa u arkaa in xornimada la siiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aydan aysan dhihin gabadhan ay xaqeeda iyo maxeediyo xalasi aysan dhihin aa ku sheegaa. waa gartay marka dembigii hore lagugu soo eedeeyey oo maxkamaddii hore ay kugu xukuntay sideed u aragtaa? aad iyo aad ugu xumay kaas dembile in dembi leeyahay ayaa ugu xumay. dembigaas waa igu dhacay waa la kufsaday hablaashii 20 oo maraayay anoo u socda meel oo laga qaybanayo sabto 12 sano suxman iridaan ka baxnay irida markaan ka baxnay kadib askarta iridii taagan meeshii u qabsadeen dugsiga baadire ay geesteen meeshii ugu farxmeeyeen anoo meeshii liigu haysta xataa nin oo xafid degan oo daraskeena waxaa la yidhi wariyaa meesha kaan kaysnaa ka laabo ninkii maalin lawood bacdii maalin ku tukisay gacanta loo gashay oo la dhaariyay markaatiyaasha hore maxkamad gobolka u diiday hadda maxkamad racfaanka dhaarisay iyo nin yaro iyo fiili maxmed ogan asaga oo xafida loo degan saddex qof aan dhaarisay maxkamadda oo racfaanka dhaarisay. imise qofaa ku kufsaday xilligaas? waxay ahaayeen shantuba askarta dawladda miyay ahaayeen mise dhar askareed unbay xidhnaayeen? aniga waxay ahayn laakiin dadka xidhnaan kuu sheegaa military wata marka inay dawladda ku tagtay inay maleeshiya aan kala war umaayo taasna ma ogi. marka dadkii ku kufsaday miyaa taqaan ilaa hadda? maya ma ka saacnay haddaan ka salaay waaba la isoo qabay dadka u sheegi lahayn waxaan ka salay marka ilaahay horta. waa gartay adiga markii lagu qabtay bishii Janaayo markii lagu qabtay adiga iyo wiilka wariyaha oo booliisku ay ku wareysteen dhowr jeer waxa la sheegay inaad bedeshay sheekada oo tiri haddana la ima kufsanin arrintaas ma jirta? waxaa sadaan dhacay aniga waxaa sariir kuna la yihiin jawaantu xafiis geysay maalmo kamid oo jamaaca ay tahay wuxuu warmaaya hadda waxaan ka rabaa inaad wakaas beenasid dawladda nacfi soo diisid ana ku baadanayo qof wax ku haysan ma jirto warkaas beenyo waxaan adeero macaan oo niwaab ku sii ku ugu dhacay beent meel soo galeys maxaa waa warka ku beeninayaan dhaay ilaahay wala ka baqayna dhaay aniga qof ilma socmin mulki yiriska aawata oo mush shaafi yiriska nasluuga odaygin waa meel guriga isku jiray aniga kaliya oo markaas xafiis ku jiray oo sida command administration qormaantii ma ahayd. waa gartay marka waxaan rabaa inaan kala cadeeyo qofka ku yiri sidaas sheeg oo la ima kufsan dhe waa kuma? waa taliyaha booliiska. halkeed ku kulanteen maalintee buu ku yidhi sidaas? waa maalintii lagu qabtay miya? waxaad ii sheegtaa marka hadda maxaa saxa marka booliiska mar waxaad u sheegtay waa lay kufsaday marna layma kufsan waxa saxdee dhacay muxuu yahay? waa gartay marka arrintaasi way dhacday. arrintaas waa dhacday rabalaashay 20 oo maraayay anigoo u socdo meel laga qaybanayo galey oo sirso oo 12 saac salaasada eeday albaabka igu qofseen nimanka waa ijiiteen indhayga xirteen dugsiga banaadir ay geesteen nin kamid ah xaafadda oo dariskeena ah la yiri wariyaa meesha kaan kaysana ka laabo ninkii maalin maxkamadda racfaanka ku tabjaan ku dhaarisay arbacadii hore oo gabadhaas marka ay iimaanayso aan arkiyo madaxa waa qaadanayo ayna waa si darna eeday waa rasaarsanay wuxuu muriidna ka muuqdeen adeer marow ana meesha liigu haystay markaa socod meesha kan ku soo dhayo adkadeed waa maqlaayay ay tiriyo gabadha meesha maxkamadda racfaanka arbacadii hore ku cadeey ku tijaamada gacanta ku dhaafay ku sii cadeey. waa gartay marka hadda waa lagu sii daayay xor baa tahay dareenkaagu waa sidee? wallahi dareenkayga waa fiican murugii hore hadda isla mid ma maanta raay ahaanteed caalamka iyo dawladda sharafta leh Akbar Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirayaasha madaxweynaha ayagana waxaan ka codsanaa adoo ay gaarsiinay in ay xuquuqdooda lagu diiftay oo hadda xuquuqdooda isii u baahan. waa gartay marka maxaad ka doonaysaa dawladda? dawladda waxaan ka codsanaa marwalba in aniga oo dembi aan lahayn oo dembi liga galay haweeney Soomaaliyeed oo mu'aadan oo wadanka xaq ku leh oo anoo dembi liga galay oo la kufi oo loo jeedo oo xaqeeda iyo maxayda dhiigay dhaxanka la difray dawladda qaranka iyo maxalliga qaranka meel lagu dhacday oo aysan ka jiraan laakiin waxa warka usub warka xaqeeda loo jeedo oo la leeyahay markaas naagay leeyahay oo la leeyahay marwalba ilmiyeeda wixii xataa waxa la xiriiraa heer ilma idin shaqeeyna inaan leeyahay xafida ka soo qaadatay. waa gartay marka dawladda maxaad ka doonaysaa inay ku qabato? dawladda sharaftina waxaan ka codsanaa wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka
garsoor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliyeed sharafta le waxaan ku codsanaa in xaqeega iyo soo siiyaan oo maxeediyo meel isoo saarana ku codsanaa. waa magdhow baad ka doonaysaa? si fiican aada iyo aad. haweenaydii sheegtay in la kufsaday oo u warramaysay haaruun macruuf kadib markii maanta la sii daayey. waxaa naga xusuusina dhegaystayaal taliyaha booliiska soomaaliya shariif sheekhuna inaynu isku dayno inaan xiriir la sameyno si aan uga helno dhankiisa jawaabaha ku aadan eedeymahaasi ay u jeedisa gabadhaasi. hase yeeshee weli maanan helin. haddii aynu helnana idaacadaha yaga dambe ayaad ku maqli doontaan.